Soomaaliyeed magaceygana ah Samiir Maxamed waxaan idin sheegayaa waxaan jeclahay waxaan jeclaaday fanaan waqtigeeda ku weyn qaali ku la dhahayo Nasiib Cali isteelkiisa qaabkiisa socodkiisa asaga dhan marka arko anigana si kale waan naqanayaa marka Nasiibo waxaan rajeynayaa inaa soo raadsid waayo ana hadda kuma dhahay mustaqbal ka leeyahay laakiin hadalka ay kaliya leh waayo nin fanaan isma dhahay mustaqbal ka yeelanay sababtoo naagiisa badan anigana tarabba maseerahay marka waxaan jeclahay in ila soo xariirtid hadaad aragtid qofkan codsi ku soo dhiibanayso waxaan leedahay Samiir Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada waa bari hadda korneero maraa imaaday laakiin nasiib daro waan kulmi weynay aniga reerayga la socday reerayga awgooda waa la iidina inaan qof la kulmo laakiin waan jeclaa mustaqbalka mar waan imaanaya dartaada neero inaa u imaado insha Allah markaas na xarjinaa inaan kulano saaxiibay ninkaas maxaa ku jeclaatay wallahi billaah maanta arkaa ilaa hadda waxa asaga ma wad fiir karo ay qaabka u jeclaatay والله دركيس استيلكيس دركيس وحرنايو يا جلقسنانتا يا قسنا جعشهاي اني waxaan jeclahay muddo 3 sano nin kale مش كانسن laakiin waa ismada daaliya heesiisa markasta inaan dhageysto hees ma ka taqaan heesa badan waa ka aqaana laakiin marka hadda leedahay wax dhan waan ilaawo jacayl dartiisa marka waxaan rajeynayaa inuu ilaa xariis la ugu soo fiiriyo waayo maxaa lahaa facebookiisana kun facebook arkay asagoo kale qof ku darsada waaye qof walba ku darsado ma aqbalayo sababtoo ah flow leen ahaanaya waliga ma aragtay ninkaas ay sheegaysid oo jecela 3 sano jecela dhees waan arkay live ku aragtay waan arkay live ku arkay isagoo joogo oo isli marayo xaafadahayna meel aan deganahay maxal jaamistreeda degneen gaaraan xaafadan oo togdheer jidkeeda agteeda isagoo maray laamigaas alhidaaya agtiisa isagoo socdo aan arkay alxamdulillah laakiin waa arki weynay waayo waa leela socday waalidkay la socdeen Allah hadlan waa jeclaa markaas jecelka uu sheego weysay uma sheegi karo sababtoo ah qof hadda ka hor imaad ina dhaayso waa ku jeclahay qofka asaga wuxuu kula arkayaa qof been oo dhalanteed wato waayo qof xaqiiq ma ahan qofka marka hortiisa tagtid maalin walba is aragtiin laakiin hal mar ku arko waa ku jeclaa qofku ma ka aqbalay Soomaa sidaas darteeda anigana marka ugu sheegan waay ay kadib mar labaad ku saamaxday ina aragto mayo saamaxaysa ina arko وانا جعل انا اركو لكن ان شاء الله waxaan rajeenayaa waan imaanay 2020 inaan niro imaada rajeenayaa markaas inaan is aragno ay maxaa soo reeran lahayd aragtid ama naag qabo ma hadda isma dhahay wad guursanaysaa sababtoo ah waa zaid oo masar badan oo ku sheegay waa nin fanaan oo naaga badan yahay inkastoo hadda nasiib wiil degan uu yahay qaabkiisa asaga marka aragtid wiil degan oo wanaagsan oo ilaahay hada guur hadda masar badan tahay maxaa jecelkiis kaga baabi'i weysay ma iskama baabi'in karo qof jecesha way jirtaa oo aan iska baabi'in karin guurkiisana aniga waxaan u maleynayaa naaga badan inuu xiriir la leeyahay masar dartiis ma hadda ninka jecesha masar dartiisa iskaga dayna hadda maxaa leedahay maxaa baa ku diraysaa ninkaas waxaan u dirayaa in uu ila soo xiriiro kaliya oo aniga isaga aan video call ku wada sheekeysano Facebook zaid midku yaa ma garan karo waa sawir walba soo dhigto wala wada saaran